سود هذا والريال سود هذا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سود هذا لما أنتم بارك الله فيكم. بسم الله. إلهي بمهدله ولا ريال بارك الله فيكم. إلهي بمهدله وولالكين سنفلا معنا الجامع سودوا هذا بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله. عبد السند وعليكم السلام ولا بارك الله فيك. سودوا أرضي ذكر على عدة والسلام يا سجنا أدبون السلام دمانتي بارك الله فيكم. سودوا هذا وبدن بالسكوي ديني يا رنت المات ما شاء الله. سودوا هذا بارك الله فيكم. إله ما هذا سكلا ولا ريال بارك الله فيكم. الله أن نمعي إله حنون ذا يدبت هذا الكيسان بدن كودين الدافيي إله مارتي caafimaadkii nimcooyinkiina siiyey ayaa mahad iska leh. maanta waxaan doonayaa walaalayaal maanta inaan ka hadlo topiga ma sha Allah inaan walaalanahay oo la yiraahdo Cabdimaalik Muuse Coldoon. samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaan doonayaa inaan ka hadlo arrinkiisa. aniguna magacayguna yahay samafale macallin jaamac ma sha Allah aad walaalayaal like iyo share kaba sii saara sakaaro waan ku salaamay walaal khayr Allah siiyo walaalkay yara waan ku mahadsantahay. kulay sida dadku gooda yaqaanaan waxaan nin macallina oo degan Sweden Stockholm ma sha Allah. halkan waxaa soo galay ardaydii qaar kamid ah iyagana arkaya ma sha Allah aad baan idin salaamaya magaciidiina soo koobi karo khayr Allah idin siiyo. waxaan hay bare ama macallin waqtigan xaadirka ay ku xiran yihiin arday gaaraysa 800 arday oo Soomaaliya oo daafaha dunida maaha Sweden oo qura daafaha dunida oo dhan ay dadkaas ka soo wada galaan. macallinna wax dhigana sharciyada nabadgelyada wadooyinka iyo sidii loo yareyn lahaa shilalka nabadgelyada wadooyinka. dad badan kulli way yaqaanaan dadka aan aqoona alxamdulillah waa barasho wanaagsan. walaalayaal ilaah baa mahad iska leh. waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo nin shaqo guudna naga wada dhaxayso oo anaguna aanu saaxiibanahay sida kale marka loo dhigana iska daayay family-gooda ama family-ga reer Muuse Coldoon. waxaan isku arkaa inaan hay shakhsi kamid ah haddaan hay jaam waxaanu si gaara walaalo u nahay Cabdiraxmaan Muuse Coldoon oo ah walaalkii ninkii markii uu xidhnaa aad ka warhaysaan halkan aan wada deganahay Sweden intaaba dagaalamayay khayr Allah siiyo. way Soomaalidu waxay tiraahdaa nin xiniyaha la qabtay ama xaar ma dhuus bay tiraahdaa Soomaalidu. ninkii walaalkii markii uu xidhmay inuu ninkana walaalkii difaaco xaq buu lahaa uu hadlo intaa waa dadaalay ninkaasi saaxiibillah yaanay walaalana waanay ninka khaasatan walaalka ka weyn Mubaarak laba iyaga soo koriyay Cabdiraxmaan iyo Cabdimaalik ba walaalana family reer Coldoon waxaan soo arkaa shakhsi kamid ah inaan hay anigu. dhinaca kale waxaan hay nin samafala ah. waxaan ka soo jeedinayaa walow waqtigii u dambeysay Cabdimaalik wada hadalay gadar ahayd markuu joogay oo deeymaka inta la soo daayay shalay un baahida aan wada hadal. haddana halkan waxaan doonayaa inaan ka soo jeediyo talo aan isri malaha sidan bay ku macaan tahay inay Cabdimaalikna ku gaadho. umaan soo fariisan halkan inaan cid ku digto umaan soo fariisan halkan inaan cid gaara aan ceebeeyo. xaseen jaamac waan ku salaamaya walaal baarak Allah fiik soo dhawow. waxaan doonayaa inaan walaalkay ku horta Cabdimaalik Muuse Coldoon marka koobaad hadalkaygu wuxuu u socdaa
inaan cabdimaalig fariintaa gaarsiisaan sheerdhaha gaarsiiya inkastoo deen reer codoon aan ka mid ahay oo fariinteedu gaarayso oon hooyadii la hadli karo walaaladii wada joogno oy sidaaba tahay haddana miidiyaha waxaan ka fidinayaa cabdimaalig hadda wuu soo baxay xorriyadiisana wuu helay maxaa lagu xidhay ma khalad bay ahayd mise sax bay ahayd iyo maxay iyo waxaasna waqti bay qaadanaysaa dheer anu waxaan ka hadlaya cabdimaalig laba point labadaba inuu cabdimaalig ogaado waa ta koobaade inuu cabdimaalig noqdo nin siyaasi ah siyaasi oo siyaasadda u xuub siibto oo uu siyaasi noqdo oo uu dowladaha iyo cidduu ka qayb gelayo dowladaha galo oo uu iyo cabdimaalig sida ummaduba ay ku jeceshahay inuu ku ekaado oo keliya samafalki iyo dadku caawin jiray iminka samafalkii waanu casriyeynay berigii hore hal qof baa la caawin jiray oo kamarad lagu soo sawiri jiray laba qof way yaraayeen hadda waxaanu bilownay inta daylan xadaarad badan baad baranaysaa hadda waxaanu bilownay inaanu caawin karno intaas oo boqoloo qof intaas oo kunoo qof inaanu miidiya anagoo adeegsanayna ka caawin karno tusaale waxaa kugu filan hadda naaw ardaydii qaar baa ku jira qaar badanna way yaqaanaan isma ammaanayo dee 800 qof cabdisanad baa ku jira ka mid ah wariye sare khayr lahaa siiyo farnomiyo dee 800 qof baan halkaa whatsappka uga dhigaa anoo gurigeyga jooga oo nabadgelyadii wadooyinka baraya oo sida loo baraya muxuu ahaa sida dadka markuu shil dhaco waxa loo yaqaan first aid ama gurmadka degdega ah sida loogu fidiyo aan baraya oo sida beeltayaasha loo xidho baraya oo sida imtixaanadii loo soo qaadiyo baraya oo haddana aan imika wadnaa aanu luqadii inaanu ingiriisigii swedishkii carabigii wixii oo dhan halkan dadka miidiyaha ka barno weliba intaas oo jeer maxaan wax ku baraynaa waxaan wax ku baraynaa waa free barato first laano anaga waxaan doonaynaa alla xaqiisa inaan ka liibaano adduuniyo anigu weliba jaamac ahaan adduun وأوجين أرضية ذو كم حلو لأنه إله عافمات كايسية سنكايرة قرحون السية قصون سكفول حماه سنكايرة قرحون السية لجها السية يا جوين كريه لكتير يعني عندها يا جوين كريه إله أفكار كحلية السية إله معرت أيام كحمدية إلهينا وحولية مركز خوف كربك قاعدة كن كربو وليه هاي أيانا نكقاعدة ولا ليال إله باردين كدارية ما أحلى محا كفي عند رتشد وعبد مالك مسعودون قاري أنا قاعد كعليس بدني مكة وهير مربو بلا بيسكول إنه عيال عربي ودقوا يسقوا برعد شقوا والله سعود تاريخ دي سودا وتشوشي سما فالكي وكسو شعب حي ومدة إيمك تاجري سي بقول كيبا كنتم دتك تاجري بقول كيبا كنتم وحيو بدين إن كنت تاجري سا ولي إلوس إلا بويدي دماركي نكي لو تقونا دتكي وحتري شري إلا يا الله ونحرستي عبد تهليل الفناء كيدنتي يسقوا نمع ذا كشرة يسقوا سيس فضود ولبا انتو محوها صحفي نمديسي وين مير ساري ولي حتى شغدي برعاك تجي وهدنا تي خيري هاي اللي درتي كسو شعبحي أيو هل مر عبد المالك أنا أنتي سالك ما صومرني أيو عبد المالك هل مر ساو تورا مركز مرحبا وإريني يابا وبيه هدو ومدحوين فرماتشو أوكي وهدنا حقا أي هدنا حقا بوغل سياسة باي لقى شيء رمبان شيقيا إرقى رمشيقا ندوك عليه والله درجة عبد المالك يستي ولا ليال أنا وحنا يوضي الصوماليات كو وحندوني يددكي داوني إني سف عني فهمان وحنا يوضي الصوماليات أنا كسو تشيدو ديغان لكن ديغان كان كسو تشيدو شرف إنان أسوهو يمويه نعسني ما أسوهو يماي waxaan haysanaa fale Soomaaliyeed oo wixii aanu ururino garoowe iyo boosaaso waageynaa baydhabo waageynaa beledweyne waageynaa muqdisho waageynaa hargeysa iyo Somaliland waageynaa meel aanu dhaafnaa ma jirto laana waxaan doonayaa hadday caruurteeda ayaniga ayaan ka fikirayaa aaba ayaanahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan wanaag iyo sharaf kula noolaado ayaan doonayaa sabab maxaan suxrayaa maxaan وين فكر عنكم أنا الصومالي أردن ولا على كذا كان كرا والصومالي أردن يوضع تعشى والصومالي أردن قبل كان دونا كذا كرا سبب محن دواية
hadda haddii aan iska dhaaf wax kale beled weynaan wax ka sheegay haddii beled weyne iga go'do ma faa'iido maan gaarinti ma rabo Soomaaliya meel iga go'da ma doonayo meel iga go'da Soomaaliya ma doonayo oday Soomaaliyeed baan ahay Soomaalinimadan jecelahay waa wada walaaladay war waxa laga hadlayo ee political sectionkii iyo waxa kale waa la kala saaraya annagu waxaan nahay samafalayaal shaqadaada markaad garan weydo waa dhibaato Cabdimaalig halkan waxaan uga digayaa u sheegayaa leeyahay Cabdimaaligo waa laba soo kala dooro walaalkay ina musocol doono anigoo ixtiraamaya walaalka Kaawen Mubaarak ee ku soo koriyay daktarkii oo saaxiibanahay anoo ixtiraamaya Cabdiraxmaan Muuse Coldoon walaalkii oo ah ragga halkan igu dhiirigeliyay maanta sabcada iyo sharafta iyo magaca iyo caanimada aan leeyahay walaalka ka dambeeyay waa la ogyahay inta xafladood ee wax la guddoonsiinayo wada goobjoogaha ilaah baa mahad iskale intuu garab taagnaa anigana waa saaxiibkayga qura waana isku ay taqaanaa 10 jeerna uu ku sheegay waana soo wada hadal hooyada waa hooyadii walaalayaal waxaan ka gubtay Cabdimaalig khudbadiisa shalay uu qabtay inuu horta arrimii hore ka soo noqday iyo buuqii ku jiray iyo hawlihii waan qaatay alxamdulillah waan ku farxay laakiin ereygu yiri inaad dhadhasateen mooyaane waxaan aad ugu mahad celinayaa buule oon aad u xusayaa hooyaday buule oo iyadu xidhnayd anigu ma xidhnayn Cabdimaalig sometimes waa yaabaysaa ninkaas siduu fikray ninkan anigu waan ku wareeray haddaba ninka meel aan u qaado waan garan waay ninkan marmar waxa la soo Christopher waxa soo socda wax ka sheegaya marmar waad yaabaysaa jiinka saaray inta jaleennimadiisa marmar warun hooyadii burcaynta ka timaado ayay hooyadayo kale ayay imanaysay kul baalku ku xiran yahay oo sidaa gaar uga haysay sabab maxaa keenaya isaga u gaday anigu kama hadlayo qadiyadaha iyo maxay waxaan laga hadlayo muxuu xidhnaayo maxaan u xidhnayn anigu xaakimeeyay anigu badaha ma galay anigu imika waan gali karaa bad hadda sidaan ahay anigu halkan jooga ayaan intaan iska cararo ayaan xamar tagaya xamar uma ma tagaya meel kale ma tagay midnimada Soomaaliya waa muqaddis u maanaya dhag waa haddaan doonayo marka aan ahay jaamac sabafalkayga inaan albaabada u soo laabo waan ka imanaya Soomaaliland baan imanaya dhag wuxuu baan Soomaaliland waa muqaddis wax alla waxa kale oo dhan ma aaminsani tab sidaas anigu marka waxa weeyaan waxaan ka hadlayaa inaad sidaas samayso oo aad meel raacdo waa correct oo bareedo nin buu Ilaahay ka dhigay bareedde halka tag daragora ka horiya oo tagay xamar oo waxa kamid ah inuu buubaayo hadda waa ka soo noqday Hargeysa jooga in ii sheegay ninkii la oran jiray muxuu ahaa labadii nin ee walaalaha maxay ahayn ilmo Ismaaciil Samatar mid ahaan waa ka soo noqday imika markii horena ilaa weligii oran jiray midnimada Soomaaliya waa muqaddis haddana imika Hargeysa Soomaaliland waa muqaddis bulay sidaasay siyaasaduhu iskugu dawaqayaan anigu waxaan ka hadlayaa political section kama hadlayaa anigu waxaan ka hadlayaa Cabdimaaligow ugo cid ku baahan baa jirta cidaad ku soo shaabaxday baa jirta cid ku jeclayd baa jirta waa samafalkii Ilaahay dartiisana guri dhagaxa ayuu Rabbi kaaga dhisaya ha ku doorsan ibn aadan yaro bari la bedelayo oo magacyaal leh oo madaxweynayaal oo bari to gabigoodba inta laga qaado haddana qaar kale la soo sharaxayo ha ku doorsan waxaad ku doorsataa jegadaad haysay maxay ahayd alla dartiina nimcad baad gaaraysaa oo Ilaahay waad ku barakoobaysaa ummadooda caawiso ifkana dadweynaha iyo ummadda ku ducaynaysa ayaad ku barakoobaysaa war maxaa political ku daba dhigay war maxaa maalin walba firiico doon oo iyo haddana dhinac waa laga caayaya dhinacna free baa la soo qoraya dadka ku taageera boqolkiiba 50 ugu badani waa dadkii samafalka waa ururadayadii iyo dadkii lacagaha ku soo diri jiray ku taageera boqolkiiba 20 waxay kugu taageerayaan hoosta Soomaali weyn buu ka yaraasay boqolkiiba 15 waxay leeyihiin burcu ku dhashay waa nin reer Somalilandna baaqiga yar ee soo harana waa intii yareeyay walaalaha Soomaali galbeed weeyaan ee aad barigii dhaweyd Cabdi Ilay markuu ka tagay meesha aad halkii mikrofoonada qaadatay weey oo iyaga laftoodii ka yaaban oo leenay ninkani muuftada dhulka dhigo maxaa waay run baan ku sheegay Cabdimaaligo walaalana weyn liwaji Allah baan kula tarinaya aniga nin samafalaa baan ahay nin walaalka baan ahay sidii wax u socdaan eed wax u wadaa ma fiicna aniga balu fiirsto miskiin yar baan oo cabdi daciifa Hargeysa tagay ayaan dhaweyd Somaliland baa tagay nabadgelyadii wadooyinka calaamadii baan qaaday madaarka la igu soo dhaweeyay cid ma dhibay may
ما عيد بنا فلقاتي ماي أنا جو أمسن صومالي أو دنيني ولا هاي تاي أنا أمسن إن أنا صومالي هاي بان كدقي أنا وهرجيسة لكن صومالي لا نو ميان حد ما هي نسمة فلا بانها مدح إيو اللي سود اللي ويا وما ديودا ما يرضي يودن بيسود ويا ما يركي بور مواد قيد عشان مده أدوك ما دقينا واحد نترى الله لكن ده يوجا كل شيء ودن باوجا عشان مده هير سلام لو سمي على مديبان وجيني وأنا لسود ويا وأنا كترنا هذا ما يركي لاس حنوت خير الله سيان عشمي هذا كيبر بران عشمين عدل هذا أمدي يودن بايسكوك هاي قبصدي وحنا المغناستي تبرش لعبكم عن حلين أدونكم عن حلين رجبا يقولي ودن كي تشوجا ورنيو ألعبتن مشروع بانو كدينا جيبي جيدا بكينو لعب بدن كو قادو war aniga dad walaaladaya waxaan tarayo anigu lacag ka dhigi maayo maari way samafalnimadayda mar rabo inaan bedelo Soomaaliyana meel kasta oo kamid ah waxaan ogaa inaan tagi karo oo ay furan tahay waayo taytalkan sitaa wuxuu isiinayaa inaan ahay maxay nin samafala ah bal fiiri bal nimcada alla ku siiyay Cabdi Maalig oo fiiri walaalayaal share ku qabto si share gareeya barakallahu fiikum bal walaalayaal yaga هاين نينكا ميشو كسو جيدا عايا isagoo meel kale iska dhaadhicinaya qiimo ma leh laakiin isku day cadaalad ha kugu jirto Cabdi Maalig oo wadada ku furan waxa weey inaad Soomaaliya oo dhan isku jiido suppose hadda anigu jaamac ahaan anigoo miskiinka ayara bas baan wadaa markii hore tagsimaan lahaa alxamdulillah Stockholm baan deganaa tagsiilayda Stockholm 600 oo ni weeye ayaan gudoomiye wahaa Soomaali baan waa walaaladay sabab aanin Soomaaliya maanta u fogeeya meesha ma taalo Cabdi Maalig waxaan ay qof kugu dhiiri gelinaya Soomaalinimadaadu inay qawi ahaato oo aanay ku kala sokayn Soomaalida Kenya wajeer joogta ay walaalaha waa walaalaha kuwa Ethiopia ما شاء الله كريم بعد كجيستي ولا لها كوة جيبوتي ولا لها هلا علوبين بوق بدن أي ميلا بدن كعجة فرمية Cabdi Maalig مساعدون وأنا كلها تلني أنا وحيالها أنا وأنا سياسة لها كم من أنت وحكم إذا نيك جبلي اللي جبيبي جيبوتي ولودي بأدايري أنا مو إنكاسي حتى أوتشرا والله وبالله أنا بولستيكال كما دحقله لكن أذهب الشيء أفكار الشيء جيبوتي ما هي كلته شعب لنا جيبوتي كتير ويكون علوبيا سبسي كان يقول Cabdi Maalig أنا أقول حندوني أين النقطة والدرجة ده هاي ستاوى درجة الأعلى والله مدحوينه يا شعب الصومالي أردن أباك قيمة بدن مدحوين يا شعب دونك يا قيمة بدن لكن إلهي محوكو تسلي وامحي سبب وامحي واحد يفكر لي وامحي هو إذا هذا الدارسة والله وام كجمي ويا رينت هذا أنا أقول سياسة لها ما دحقله سياسة لها ما دحقله لكن وحندوني يا إنان النقضة تصالح دنيرة الصومالي ده أو أباء الصوماليان هاي قديدان وحياله دعي وحياله اللي يسكو سميهي وحي دعي دولة دي محمد سياد بري وحي كدن بيهي أنا شو داخل جوه كلمايو مربع نقول ديريي سياسة أنا نقول ديريي وأنا كنت شراي مكا مربع نقول ديريي مركز سياسة دان صوغ لواحد ninka caanka akhir Allah siiyo ee iimankana sameeyay barnaamijkan la yiraahdo walaaliyo orod waa nin muhiimdiisa smart waa nin aan ka yaabay ninkaas maskaxdiisu waxa la yiraahdaa Ismaaciil Jamaa'ika wuxuu la degayay Sweden magaalada Malmo ninkaas wuxuu sameeyay program bariga iimanka wuxuu sameeyay barnaamijkan walaaliyo orod ee Facebook-yada iyo media qabsaday oo dhan mar dhexdana buu telefoon iga soo dhifto wuxuu sameeyay barnaamij la yiraahdo Somali Berkshire Group waan ku qanacay anigoo siyaasadaha doonayn inaan dhex galo oo Soomaaliya inuu gobol yar iga lumo oo aan waayo diidan oo samafalnimadayda iyo walaalnimadayda iyo Soomaali jacaylkayga ilaashanaya ayuu yiri jaamaco waan ku aqaanaay walaal gacaliye halka arrinkaana laga maadaama aad nin aftahana tahay afayeenkii ururka la iga dhigay ururkii baan galay dhowr jeer baan meel badan lagu casuumay London ayaa xataa lagu casuumay Charterhouse-ka wax ururkaygaas muxuu ka hadlay war Soomaaliya baabaaday 30 sanadood kadib meesha sartu ka quluntayna waa Somaliland iyo Soomaaliya
inta kolba tugriga iyo meel laydinka yeedhayo walaalayaal baaraka allah fiikum heshiiya oo idinku wada hadla markaas ururkaa ku biiray waanan ku jiraa weli Sweden si fiican baan looga soo dhaweeyay xataa wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden waxay noo ogolaatay meel halkan ku taala oo Rimba la yiraahdo oo lagu heshiisiyay xoutiyiinta iyo Yemeniinta bariil waxay Sweden ay dhex gashay in aanu halkaa intaan iskugu yeerno labadoodaba ku heshiisino Somaliland waa bay ogolaatay laakiin Soomaaliya weli kama soo dhamaan arrintaasi maxaan waayay Somaliland maan waayin in shacabkeedii Soomaaliyana maan waayin shacabkeedii waa walaalahay dabadiba inaanu madaxdiisu keeno anagu oo waliba ma taqaanayaanu nahay Soomaali oo dhan baan ururkaygaasi kii baydhaba ku dhashaa ku jira oo kii xamar weyniyo shingaani ku dhashaa ku jira oo kii hargeysa ku dhashaa ku jira oo kii burco ku dhashaa ku jira oo kii boorama ku dhashaa ku jira oo kii Soomaali oo dhan baan ka koobanay ururahan bal fiiri markaasaan ugu fogaaday on Soomaali dhaxgalay oo yani arrinkaas Soomaali wax balose ku taabsan galay arrintaasina meel fiican bay noo maraysaa jazaakum allah alif khayr laakiin waxa soo dhan ugu su'aal qabsanaya Cabdimaalik Muuse Coldoon oo walaal aday kugu socota arrinkaygu walaal mar walba free Coldoon de waa laga daalay free Coldoon de waa laga daalay anagu haddaan ururka samafayaasha nahay wallahi billahi tallahi madaxa anagu kacay oo madaxda Soomaaliland waan la hadalay oo meel walba waanu hadalay oo inta waanu qeyriyeenay oo wax walba waan niri laakiin mar walba in la yiraahdo imaka waxaan arkay soo deyntaadii dadku waxyaalaha ay ka qorayeen qaar waxay soo qorayeen wala soo daayay iska daabariba uu lumiye walaqad karamna bani aadama war ahlu diin baa tahay niyow war walaalka anagu Cabdiraxmaan baan halkan wada joognaa every second inaan ka yiri Manchester buu taageeraa ilaahay baan ku dhaartay mar walba dhalinyarada Soomaalida sidoo isku jiido ana wax ka barta ilaahay googi ولي عبد الرحمن Muuse Coldoon oo cid gaar u faquuqiyo oo war kuwani waa sidan iyo kuwani waa sidan iyo kuwani noloshayda ma arag wara walaalka hadda intii alxinayd ma boqol jeer ku yiri war gudoba hagelna Cabdi Raxmaan war Cabdi Raxmaan oo baladiguna afkaaga hayso oo muxuu haysan deewani walaalkii xiran yahay hay inuu isaguna birta wax ka asla weeyaan adaa kalifay markay inaan ka aynu hadda hal shalay baan wada hadlayna wuxuu yiri khalaas mar hadii walaalkii la soo daayay anigu halkaas marka wixii ka dambeeyay ayaan arrimihii kaga baxay walaalkiina talaa naga dhaxayso waan wada hadal wiilo go'aan baanu gaadhnay markaanu soo saarnay haddaan reer Coldoon nahay waanu nala qaatay walaalkii alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku faraxsanahay waxaan shakhsi ka tirsan family reer Coldoon dadka qaar baa aqooni laba waxay oranayaan ma taqaana sabafale macallin jaamac family ahaan waxay isku dhow yihiin oo adeero ah isku dhow yihiin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa adeero ah qaar baa waxa oranaya oo waan ogay ilan fulaxantii ma ogaalay ha waan ogay laakiin uqsim billah inaana waxaan ka hadlayaa aanu hayn policy iyo sheeko kale wax ku saabsan ahayn waxaan ka hadlayaa kaliya anigu walaalkay Cabdimaalik Muuse Coldoon jacaylkan qabo oo ah war ha qaldamin mar dambe ha qaldan yarbaa wuxuu soo duubay meediyaha maalintaad soo gashay sidaad ku soo gashay in programyadaadii oo dhan buu bal kana dhageysta isagu wuxuu uga jeeday inuu aad ku dhaliilo laakiin waxyaalo badan baan kala soo dhaxbaxay anigu walaal Cabdimaalik waxa lagu dhaliilaa second inaad isku bedesho taasina ma fiicna waad ogtahay wadanka Soomaaliya dhibaato ka taagan dadku uu is wada seegay waad ogto diyaarada la isku rusheeyay buuq akhbaar dhacay aniga arkay anigoo miskiin oo sabafale macallin jaamac anigoo dadkayga Soomaaliyeed cid kasta waxa gaarsiinaya oo Soomaali isku qiimid tahay baan haddana waxaan aaminsanahay inay iyagu wada hadlaan Turkiya oo nacaawiya kanoo gogol ku qabta lacag meel lagu baabiyo waxa ka fiican inay wada hadlaan maalintii dhaweyd alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku farxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalka Soomaaliya oo dhan iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maalintii dhaweyd ku shireen Addis Ababa uqsim billaahi waa soo dhaweey sababtoo waxay noqdeen labadii nin war Soomaalida kale oo dhan dhibtu way ka bixiyeen hadii labadan meelood heshiiyaan
labadan meelood waa labadii dowladood intay xorriyadda ingiriis iyo ka qaateen talyaaniga israacay bilaa shuruud haddana iyagii baa kala go'ay inay heshiiyaan mar walba waan la soo taaganay waa mabda aan aaminsanay in dad kale heshiisiiyaan oo dad kale yidhaahdaan kolba oo la yidhaahdo shirbaa halkan lagu qabtay iyo kan baa laydiin soo sameeyey waxaan kuma hagaagayso Soomaaliya kuma hagaagayso waxay ku hagaagaysaa inay wada hadlaan maalintii dhaweed gubannimay sameeyeen waan ku farxay anigu war Abiy Ahmed waad arkaysaa inaan ka yiri shalay buu qabsaday Addis Ababa Ethiopia halkan Norway buu Nobel Prize ka qaatay sideen maar bay halkan buu ka qaatay bal fiir sharafta wuxuu ka helay baarama oo intaas oo malyan ku go'day oo intaas oo kharash ku baabay buu yiri Ethiopia ka soo baxa Eritreankana gacantu ka saar walaalaynu nayuuri inaad gobonimo qaadataa oo wax fiican aad samaysaa waa very important war dad badan ayaa ishaysiga ay saystaan Soomaaliland iyo Soomaaliya dartood u barakacay oo maalin walba u dhibaatoonaya oo u dulman ee madaxda Soomaaliya waxaan leeyahay iyo Soomaaliland heshiiya taas waa ku alxamdulillah rabbil caalamiin talabaad waxaan leeyahay Cabdimaalik waa ku milmay siyaasadaha socda adigoo dadka caawinaya wala adigoo burcad jooga wala adigoo walaal habbi ku jira ayagoo dadku saalcad ugu soo qubayaan ayaad walaalo markii carartayo adeeradaadii burcad galaaba qaar ka naxay ku habaareen baxta markii madaxweyne Farmaajo adigoo dooranaya ay ku arkeen oo inaad doorato madaxweyne Farmaajo iyo inaad muxuu ahaa Soomaali oo leyso waa waxaad xaq u leedahay laakiin ma taqaana markaad xaq u leedahay ila meel baad ka soo jeedaa laba meelood oo Mainz iyo Barcelona isku qarxaya ayaa intaad meel ka duushay ayaad xaqii kala tagtay markaasaad waxa bay aaminsan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu Maxamed Siyaad Barreeba oo adeerkii rumaha oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa ninkii Hargeysa iyo burburiyay dadka qaar baa aaminsan adigoon majarahaaga u meel dayin adigoon waxba eegin baa totally waabad ahay okay waa doorashadii buu ku guuleystay madaxweyne tribuunka timay xamar waa qaylisay wabiyahay doorta awliyaan dooranay waan ku arkay oo cajilaan daawada haye maxaa markaa ku haboona gobonimo waxay ahayd maalintaas aad khaldantay inaad sidii ina buuba iyo ragii ka horeeyay iyo odayga baarlamaanka aqalka caadi baarlamaanka haysta iyo senator Goodax iyo nimanka inaad sahalka uga soo jeesato oo tiraado Soomaalinimadu waa muqaddis wasiir baa lagu barbaari lahaa wasiir baa lagu siin lahaa waa raganimo ya dil ragwaageya qadafnahe waxa weeye haddana isla Hargeysa ku soo noqotay waxa ku soo noqotay Soomaaliland iska daadiga kuwii adeeradaadii family kugu xigay waa inkaari koranaya ila meeshan dad war caruurtii dhashay baa qaarkood markay maqlaan Muqdisho qaar naftu ka baxaysa lama heshiin madaxdii heshiin lahayd Soomaaliland iyo Soomaaliyana dhammaantood waxaan koran karaa waaba xoolaba bili aadan maaha haddii shir loogu qabto Turkiga way yaacayaan hawo markaasaa hudheelaa la gelaya Allah markaasaa kaafeega I would like koob kaafee baan doonaya ila lacag baa lagu cunaya waa la soo noqonaya maxaad ku heshiiseen markii hore tagayeenba maxay ku heshiiyeen markuu Hargeysa maxay ahayd cigaal international airport markay ka baxayaan madaxda reer Soomaaliland waxay yiraahdaan waa la wareystaa mugtay waxa kale oo dhan waxaan ka wada hadlaynaa waxa kale oo dhan waa okay laakiin midnimada Soomaaliland waa muqaddis okay wax Turkiga baa lagu sii socdaa kuwii xamar ka tagay madaxdii xamar baayiguna waxay leeyihiin maxaad ka wada hadlaysaan Soomaaliland waxa wareysanaya journalki waxa kale oo dhan aanu ka wada hadlaynaa waa okay laakiin midnimada Soomaali weyn waa muqaddis labada group ee midna uu ka baxay Soomaaliland midna Soomaaliya ka baxay markay Turkigii tagaan maxay soo kordhinayaan maxay keeneen dadkii un baa la jaawarinaya Soomaa marka waxaan ka hadlayaa anigu marka horeba ilaan sida lagu yimid waa xaraana tanaasul ma jiro marka waxa weeye khaladku Cabdimaalik oo hadda tiraado waxba ansaxaya oo meel ciin daaqday baa ansaxaya de sidan ku siximay sida lafahaaga aw dhiman anigu rumaan ku sheegaya Cabdimaalik waxaan doonayaa inaan si yar fudud u tuso ma taqaanaa dadka runta ka hadla halkay joogaan
soo ma doonaysid inaad run u ololeyso run ka hadasho oo aad lagu ammaano lagu yidhahdo alla cabdimaalig muuse coldoon waa nin run ka hadlo waa nin balaayo ka dhacday ragga runta ka hadlaa haddaba aan kuu sheegay waxa weeye kow waa daahir cali sow laba waa shiino culey saddex waa duqbulow afar waa alcadaala yarka la yidhaha halkan alcadaala waa dadka runta ka hadla haddaan si kale kuugu dhigo walaalo far waayin kugu daabaco cabdimaalig muuse coldoonow waa lagu sitaaye nimankaasi yurub bay joogaan hadday wax walba ku hadlaan yaa soo xidhaya yaa la xidhi karaa lama xidhaya waxa ay doonaan bay ku hadlaan adigana burcaad joogtaa wadankii dhinacna u dhaafi maysid nin samafalaa baa tahay anigu wallaahi waxaan ku arkaa cabdimaaligoo dacwadii socodkeediina ka tagtay kii rasuulkana gaari weydi warniyow anigu taladaan ku siinaya waxay tahay cabdimaaligow war walaal political section meel iska saar war walaal dad samafalayaala baa nahay ilaahay dartii baa dadka ku caawin jirtay alle dartii u soo noqo alle dartii u soo noqo ilaahay dartii baynu dadka u caawinaa ummadda soomaaliyeed mid ha ku ahaato bolotigal aad ku dawaqday na ka dhex baxa hadda maleeg soomaali galbeed baan ka hadlaya 50 sanadood bay jihaad ku soo jireen oo Itoobiya la dagaalamayeen adiguna markii uu dambeeyay cabdi ilay oo hawada ka sii baxaya mikrofoonkaad ku caawisay madaxdii meel ay wax mariyaan meedii ahaan marin laabaad gacan qabatay alxamdulillah waad guuleysatay waad ku suntan tahay inaad ka dambeysay kila ka shanaad muxuu ahaa gobonimadii ay gaareen laakiin ku darso hadda iswiirish ku xidhaan naag deel iyo fordel faa'iidii khasaare labadaba way lahayd ogow shacabka reer kila ka shanaad boqolkiiba 80% ama 40% ka mid ah mucaarad bay ku yihiin waa maxay sababtu de cabdi ilay oo ka tagay meesha hadduu ka tagay inuu iska tagaad mooysa dadkii wada madaxda ka dhigay iyo dadkii meesha ay u xidhnayd way wada joogaan iyo dadkii familigiisi cabdimaaligoo kuma maqli karaan de anigu waxaan ka hadlayaa walaa nin weyn baan ahay wariyay gacani kaa go'in war isku wado Soomaali oo dhan wado samafalkaagiina ku noqo siyaasadahana dibadda uga bax haddii kale de mar walba free de wax way marka dambe waa way kalsoonidoo dhan baa burburaysa familigiini baa kugu dabadaalay wadiga sheegay maamada gacaliso way kugu dabadaashay in walaalada iyo kuwii ka weynaa baa kugu dabadaalay madaxadeygaagu wax badan buu sababay anigu maxaa lagu xidhay iyo in waad saxsanayd iyo waad khaldanayd iyo waxa kama hadlaya waxaan ka hadlayaa nin samafalaa baa tahay darajadii ugu qiimaha badnaydna waad gaadhay qof gaadho haddana walaal wadigaasoo buuqun baad ku jirtaa war sadaqadan maxaad ururin lahaday war dadkan kuu baahan ee walaalaha ee masaakiinteedu wax tari jirtay iyo alla dartiima waxa kala qaalisanaaday inaad caan noqoto oo cirka u baxdo oo madaxda noo garqaada ay tiraado kulba cid isku marantaan maya ilaahay ninka uu meel u dhiibayo allaha koonka abuurtaa markii horeba u dhiibay ilaahay baa qadaray inuu qofkaasi meeshii qabto haddaad wax saxayso wadamadii wax lagu sixi jiray ma joogtid run baan ku sheegaynaa balaa run baa ciibo kuma sheegin wallaahi baana joogin oo bilaahi baana joogin afrika joogtaa afrikana wax walba ka dhaca war afrika nolosha war heeda siyaasaddu waxay gaadhaa heer uu qofku walaalkii u dili karo سلطان قاموس لكن عمان أبيبو خارجي قوبتها كسو تشيدو عيب هاوسو تشيدي قوبتها كلا تيجي سنة قدبها كجري أديكو أور هير برعا أدو ديغان كاقي وتا الصومالي ودنها كو سناتو
anigu jaamac samafalaanahay wallaahi oo bilaahi waxaan aaminsanahay inaan iska dhaaf soo qofka ugu sarreeya maha Somaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ima soo dhawaan karo ima soo hadal qaadi karo aniga haddaan boosaaso ka dego oon garoowe ka dego oon xamar ka dego aniga oo dad caawinayo samafala laakiin haddaan balo sii galo oo dadkani waxbay samaysteen waxay doonaan ha samaystaan aan dhaqdhaqaaji iminka kale iska badaaba Somaliland kama hadlayo xamarna kama hadlayo iyo Soomaali iska dhaaf wax kale Puntland haddaan maanta u dhawaado oo aan idhaahdo gobolada Puntland iyo dowladda intii wixii ay samaysteen waa qalad shacbiyada intee lag baan waaye ما تشعلي بانكر واحد دوني مستقبل كينا نقرو يقرنو انقر كريستان دوني مستقبل كقرنو يقرو يبوساسو وانت سو تيرتقي وصاحبه يودن با جوجو ولاله يودن با جوجو ifka dad aan ugu jeclaa jooga waa ehelkaygii waa Soomaali waa walaaladii afxumo cadaawadna waxba kaama tarto nabadna way ka fogeysaa walaal way jiraan dad maskaxda inta laga galay dagaal ku jiro oo jihaad ku jiro oo qadiyado ka hadlayo oo baqbuuqo warna waxa kama hadlayno anu Cabdi Maalig waxaan haystaa wax kale maaha walaalayaal si sheer gareeya barakallahu fiikum si sheer gareeya hagaado Cabdi Maalig walaalayaal waxa weeye barakallahu fiikum Cabdi Maalig Soomaaliyo dhan baa jecel inta jecel baan kamid ahay inta ugu leex jecelada badan baan kamid ahay maanta maadaama sanad iyo bad uu soo dhameystay waxaan doonayaa mustaqbalkiisa dambe in uu magaciisuna waaro nacaybiga maaha inuu magaciisuna waaro halka uu joogo meel ka sareeyana uu taga ayaan doonayaa nin iga leex jecel badan ma jiro laakiin taladeydani waxa weeye media waxaan ugu marinayaa waxa weeye Cabdi Maalig oo walaal labayay kaaga dhaxaynin inaad politican ma noqoto oo aad siyaasadaha ku biirto oo aad cadaysato iyo inaad samafalkii ku noqoto waliba anigu waxaan koran lahaa meel kaaga khayr badan ma jiro wasiirada adaa ka magac badan madaxweynayaasha adaa ka magac badan qiimo iyo ilaahay iziya karaamo ku siiyay walaal la jecel iga kaaysa والله وبالله وتالله لا حجاله كايسا هويدا waa hooyadii walaalada waa walaaladii waliba waad ogtahay inagu wayna wada hadalaynaa family reer Caldoon kamid ahay oo walaalkaana inta badan la yiraahdo family reer Beesi ayuu kamid yahay waa family yagii ana alaygu dadku igu yiraahdaan family Caldoon buu kamid yahay anigu waa dhici kartaa in dadka aan life ka u qabtay dad badan iska soo kaycaayaan dad badani waxay doonaan iskaga hadlaan dad badan khayr Allah siiye amaanaan laakiin waxaan ka hadlayaa anigiyo in badan oo ila midii waxaanu ka damqanay mar walba waxay leeyihiin dadku Cabdi Maalig laba xarig ba istarta sidoo uu joogo ayuu buu leey soo galaya qalbi dhagax maxaa loo qaaday waxyaalaha ugu daran ugu yaabka badnaa waxa weeye Cabdi Maalig isagoo xamar caan ka ah oo ma sha Allah oo madaxweyne farmaajana marka dadkii uu leeyahay kamid ahaayo tribuunka tagayo ayaa wax yar baa ka soo wareegay haddana qalbi dhagax la dhiibay أبو فدي أبو لايفك هلا شيء دولة دوحة نقف فدينا أفريقيا لبعض ساعات إن يكون سواء عند السؤال كي قالوا لك على كي الله لا 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 هياي مركي بهرت وحوي تاجر دي دولة دي كمل جار كايد دي ينا ودتي بهرت هالك كبودي دت بدنا دي ودولة دي بلا شغينا يندي إيه مر بقرب باك جوي عبد الملك ده بدنا حدنا وأرتا حقيقة وحنا لقرين كرين وياهين أهل حقه وأن دونين وحول بكهل لكن ولا أنا قارن كان كهل يتعامها وحنا ليه فله هو يدي ما قبل تبالي فله هو يدي ما قبل تو ور نين كستو جورناليست أو سومالي شو هذا كقيمة بدل مدح سومالي شو تو لمبات كقيمة بدل تاي ورنين مد إلهي يدعي سبعتها لكن دقيقة بعد كل بطين وتشيريسا وريك عبد الملك دي ما ترنت لقوا عدين ويرنت له شيء واي دب دم بهذا ما عليه دم ميركل ينجي لي أمريكا سمينه كحي غيناهم فري ماها وين ما أنت اللي سودا وين رنت وشنا
waxyaalaha isweydiinta leh ee aan daawaday waxaa ka mid ah gadar baa la yidhi waar soo diyaari aljazeera tii waxa soo diyaarisaa muxuu ahaa program bal waa adigan jaamacada marka laga qalajibiyo dee waa tan wax la soo diyaariyo soo diyaari af carabiga anagu iskuma fiicnine tobigiiba wuxuu ka dhigay madaxweyne cabdulaahi maxamed farmaajo oo ka degay cigaal international airport oo af carabiya buu ka dhigay hayaay maxaa kalifay waar bal hadduu doono wuxuu odhan lahaaba cilmaca ii sheeg war sheekh buu ka degayba wuu odhan karayay hadduu doonana jabuuti buu ka degay wuu odhan karayay hadduu doonana garoonka aadan cadduu ka degay buu odhan karayay hadduu doonana boosaasu buu odhan karayay maxaa kalifay hargeysuu ka degay ila waa waxaan isqabanayn positive oo aan isqaban karayn oo isku hagaagsanayn ayuu isku beegay waxa weeye walaalayaal cabdimaalik leha jeclaan ka qabaa waa walaalkay waan jeclahay sidaa dad badan oo soomaaliya ay u jecelin qaar badan oo necbina way jiraan aniga iga hadlaya dee anigu miidiyaba xoog uguma jiro nin iska miskiinaan ahay oo macallin yare dad jecel iyo dad necbi way jiraan muhiimku waxa weeye cabdimaalik waxaan uga faa'iidaysanayaa halkan inuu afkiisa haysto asakuud minadaha bayt alcabso afkaaga haysto war fursad war waxaba kuu banaanba war meel aad alla dartiina aad jannada ka tegayso ifkana aad ku liibaanaysaad haysataaba oo waxaanoo madaxweynaha iyo waxaanoo ummadii midina aanay haysanin maxaa kaa maqan maxaad la ordaysaa maxaad la gariiraysaa war samafalaa tahay nin samafalaabaa tahay alla dartii baad hawshan u qabataa maad lambarkaaga xijiysatidoo maad halkaagan ku ekaatid waxaan leeyahay walaalayaal baaraka allah fiikum ilaahay dadka qaar waxay leeyihiin dadka dulman buu u doodaa war marka jeel lagu xidho dee u doodi maysa adigu dadka dulman buu u doodaa sanad iyo bar buu soo liqayday dadka dulman buu u doodaa hadduu dad dulman u doodo waxa ka qiimo badan dadka dulman intuu u doodayo inuu dadka masaakiinta u caawin jira caawiya waayo dadkii dulmanaa markaad u doodo dowlada iyo maamulo goboleedyo iyo muxuu ahaa iyo meelaad faraha la gelaysaa niman ay dee iska haystaan dabadeedna baxar baad gelaysaayo qab waa lagu xidhi dadka dee aan xorriyadda lagu qabsanayn ee fiican ee afkooda ku hadlaa dee yurub bay ka buuxaan orodoo soo xidhi waa kuwane orod hawiye caaya daarood bay caayaan oo isaaq bay caayaan oo raxweyn bay caayaan oo gabooye caayaan oo cid ay dhaafaan ma jiro cid ay dhaafaan waliba youtubeyada lacag bay ku helaan miyaad aragtay weli cid soo qabanaysa xidhaysa saasuu weliba kuleeya leeg iyo sheer saara waa loo saaray anigu waxaan qabaa nin la jecla kale cabdimaalik odhan maayo dad maanta nin waloo inaga midiba haddaad jeceshay cabdimaalik runta u sheeg halkaad ku gaadho waxaad ku tiraahdaa may waa khalade ilaahay u go oo alla dartii u go diintana waa taqaanaa carabigana waa adigii imanta ku bartay waari allo u go oo dhalinyaradii aad tiri carabigaan barayaa berigii arday badan baad soo saari lahayd soo saar oo waxaad qabanaysa qaba anigoo miskiin ahoo halkan jooga ayaa dadka swedishkii dadka luqadda ku adag tahay lacag kama qaato waa anigaa baraya inay nabadgelyadii wadooyinkii liisanadii iyo wadamadan aad u adag waa aniga arkaya 800 oo qof baan imika u dhigaa qof kasta oo qolkan ku jira oo codkayga daawada uu ka soo qayb geli karaa whatsappkayga soo doonto people and power baa ku qoran haddii kale lambarkayga ma facebookayga ka soo tixraaco waa bilaash baan kugu baraya wadanka doonto joog koonfur afrika laga soo dhigtaa kenya laga soo galaa meel walba belgium waan u dhignaa ummadda halkaana waan uga faa'iideysanayaa fursadda inaad ninkii doonaya inuu barto nabadgelyada wadooyinka iyo calaamadahooda khaasatan haweenka u dhibta ku haya liisanadu inay ila soo xidhiidhaan free baan ku baraa wax lacagana kama doonayo baaraka allah fiikum arrinkaana waan ka yar faa'iideysanayaa lifekayga walaalayaal qofka la jecla ka qaba cabdimaalik muuse coldoon waa qofka runta u sheegaya ee le war waxana ku milmina joog cabdimaalik wuxuu isgarab dhigay miidiyihii iyo sadaqadii dabadeedna waxa usoo baxday xoogaa sadaqadii inay wax hooseeya tahay oo iska xayraana
markaa wuxuu yiri balaa kor adoo hay kor yar ka calaaqatay ha ilaan dunidu waa low aan hay u socdo yiri xaqiiqatan fikirkaasina waa khalad allah agtiisa ilaahay wuxuu leeyahay qofka wax wanaagsan sameeya waa nimceeya qofka hal qof kurba ka dulqaada kun kurbaan ka qaada ilaahay wax kana ataawunu ala albirri wattaqwa warma caawimadii baynu ka tagnaa dimaaligo markaas aad waxa doonaysaa in kulban in madaxa lagu soo sawiro in aad ahaayo in deelaylaado bolotiyo in abdimaaligo heer wuxuu gaaray inuu war Afrika oo dama afgembi kuma sameyn kartid nin awood leh sida yarka ishaq haysta Ethiopia kale wax badan buu ka bedelay iminka Afrika waayo Ethiopia de intaas oo sanadood dhisnayd ayuu madaxweyne u noqday وهذوك إثيوبيا تاريخ ده بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهذوك يا أختي قاسي تشرين إثيوبيا بقول كذا كتشرين نجاسة أيها كتشرين دي هالك أول لوتي كتشرين وقوم كاسو حكومة ده أديكون الدنيا حوق لقصو وده جليو والحاجة لقوة ده قرصنا يو وحنكوري إن جروب ليسكو حلي هاي ayaa doonaysa inaad madaxa geliso dimuqraadiyad ka dhex samayso ma dhici kartaa inan baalkan wuxuu iska soo qorayaayo dulmigu Cabdi Maalig diidan yahay oo cid buu haystaa مولد بالنا يسوي عيد بو كمرين عيد بو هايستا مركا هذا المولد هذا عيد بالنا يستا انت خوف كمران تهينا ولا الميل قاري ما يصير مولد وجزاك الله الف خير انت جروب يا عيد يا غير يا قبيله هايستو والله العظيم ما حاجه بس مور لون با كدعي ميل قاري ميس وايو مسكحدي بعد كلمه دي انا wax kale ku ormay maskaxdaad ka dhimatay walaal mawlid maxaa ugu qoran mawlid hebel waaka marka hore ogow inaad nin Soomaaliya tahay marka horta adinti dhalashadaadu nin Soomaaliya tahay marka hore Soomaaliya oo dhan ha ku sinaato hadaa doonaysid inaad badbaado weeyaan Soomaaliya oo dhan ha ku sinaato walaala ka dhiga Soomaaliya oo dhan ummadaha kale ee caalamka Ilaahay abuurayna gaal iyo islaamba ha ka nabad galaan waa marka hore aad doonaysid dadnimadu waxay tahay inaad baadi doonto hadaad aragto dad is haysta alla dartii u dhaxgal ورشية ده هو داف لكن يعيد كاغوين والالدي عيديه كاغوين تلادا بخينيا وتا عبد المالك تا ان سينيو waxa weeye Cabdi Maalig oo Soomaali isku kaamida haato ko waa saxta koobaad talabaadna siyaasadahan aad xararayso iska jooji walaal oo waay anaga la xijaalada naga ka haysa hadaan soo falayaalnahay waa maxay iyo dadka kale ee masaakiinta ba ilaa inta badan dadkii baynu adeegaynaa halkan ka ururiya waxaan ururiya dira wadankii u dira meel gaar ah waxuma dirno Soomaaliya oo dhan baan u dirna laakiin ujeedadu waa maxay waxaan u sameeynaa ma yarkay maqlayba si waa liwajhi Allah baan waxaan u sameeynaa ilaahi darti alla darti ilaahi wuxuu leeyahay qofka ummadayda makhluuqayga nabadgeliya ee makhluuqayga wanaajiya anagu waan wanaajinaya bal aad u fiirso nimankan cadaanka indhaha buluugana la deganahay muxuu roobku uga qaadi lahay sadaqad bay bixiyaan anigoo Soomaaliya kayma bay yeelan Suuriyaanki waa halkan jooga Iraaqiyaanki oo soo qaxay halkan jooga markaas waxa la yiri baasaboorka casaanka qaata isku waxaynu nahay waynu simanahay waa darkiisii ninkii madoobay Mareykanka wixii ka dhacay meel walba adduunka waa looga mudahray dadnima laga hadlaya in reer Sweden ay jirtay markoo booliska oo jilbaha dhulka dhigtay halkan oo dadkii ka wada hiisaydo dresski gashan halka intii laabta ku soo qaatay calaamadii bay tahay waxaan ay dad cadaana anigoo dadka cadaanka waan ka xumay wixii loo geystay ninka walaalkay wallahi dadku way wada ooyeen war ayna dadnima laga hadlaya dadnimo horta marka hore dadnimo garo marka dambana Soomaalinimo garo waxa weeye walaalayaal barakallahu fiikum Cabdi Maalig waxaan leeyahay anu waxaan ahay nin qoyska reer Cabdi Maalig u socdoon kamid ah oo qsam billah oo jecel walaalnimadiisa iyo dadnimadiisa inuu kor noqdo laakiin Cabdi Maalig mowjada badan ama gintaaro badan buu garaacay xaggan marka noloshiisi wuxuu ku dhameystay baqasho
noloshiisa wuxuu ku dhamaystay xidhniin noloshiisa wuxuu ku dhamaystay anigu kama sheekaynayo maxaa lagu xulay iyo maxay ahayd wixii lagu xukumay iyo muxuu ahaa waxaasi anigu waxyaalaha dhacay shaqadayda maaha cabdimaalig waxaan ka hadlayaa oo keliya inuu ilaahay dartii u soo noqdo oo uu dadku caawin jiray caawiyo hadduu waayo cabdimaalig oo aad weydo cajaladayda soo gaaraysaa haddaad weydo walaal haddaad weydo siyaasadda gal iyo kaaga dhaxayn siyaasadina labun bay ku gelinaysaa markaa oo shacbiyad badan ayaa haddana kaa go'aysay ku talagal inaad Soomaali weyn u go'do oo muqdisho tagto oo madaxweyne farmaajo saaxiibabatiina xil ku dhibo oo dabadeedna halkan ku wanaad soo afto tiraado Somaliland waa xaraan goyntaankeedu oo halkan laga go'o qayb haddana kaa goodo iyo inaad iminka tiraado warniyo anigu midnimada Somaliland waa muqaddise Somaliland baan ayo haddana halkan baan xaganaad ka bilowdo kadibna shacbiyad kale oo iyagana fara badan haddana kaa go'an iyo ta saddexaad alternative-ka saddexaad oo ah inaad adigu oo aan Somaliland iyo shacabkeedana culeysan Soomaali weyna aan culeysan in Soomaalida kale ee Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti degan aan culeysan adigoo ah nin samafala oo nadiif oo sharaf badan dadkii aynu wax u guri jirnay iyo masaakiintii ilaahina aan ugu dhawaanaynay aad halkoodii ka bilowdo halkaas aan kuugu ducaynaynay halka gal hadii kale waxaad noqon doontaa shimbir garabla garashadu haday ruux la tahay soo garanay garaadkiisa soo raba hadii loola garan waayo garda ruux qaata ninkii yiri gadaashii xaajadu markay gowda iyo geerka culus joogto galabta nin gaashaantay uu gala ka fuula haddaan gabayga hadraawi ku yartuntay hadraawina xaal baan siinay ninka markii haday wax la noqoto waxa uu ku kaco uu yiraahdo waan ka midha dhalinayaa oo dabadeedna email u balla jiido waa dhibaato cabdimaalig la xajalo ayaa haysa cabdimaalig muusocdoon waan jecelahay cabdimaalig waa nin geesiyo oo ku dhacle waana nin aftahana laakiin dibkiisu waa maxay cadawii saaciida ka batay wuxuu samaystay cadow ciida ka fara badan ayuu samaystay maaha inaad ku noolaato baqasho maaha hadda anigoo miskiinka yar cabdu daciifka ah ee samafala macalin jaamace halkan Sweden joogay ardayda wuxuu dhigay adduunka kale ardayda badan iga xiran tahay alxamdulillaah haddana shaqadaydiina ku jiray Soomaaliya oo dhan isku ka yimid tahay haddaan meel yar taabto oo iska daa meel kale soo koob gobolka Hiiraan taa wax ka sheego oo iga go kuma qanacsani aad baan niyad jab qaadaya way shacabka reer Hiiraan waan jeclay waa shacabkii Soomaaliya oo dhan baan jeclay waa shacabkii Soomaaliya oo dhan markaan leeyahay Soomaaliya oo dhan Soomaaliya way ku jirtaa Soomaaliya oo dhan anigoo aan cid u geysanayn waxba oo dadka wada jecel ayaan doonayaa anoo sharaf leh inaan ka digi karo Somaliland anoo oday Soomaaliyeed oo la jecel yahay oo ninna dambi u geysan aan ka digi karo Muqdisho caasimadii Soomaaliya oo aan ka policy baan iska ilaalinayaa siyaasadu baan ka qayb galin laakiin shacabkayga iyo ummadahayga iyo dadkayga saan u caawin lahaa iyo saan u dhex socon lahaa iyo sidii aan alle uga farxin lahaa baan ku tala jiraa anigu ujeedkan dadka u caawiyaa maaha hebelow arkayo hebelow sidan sameeyo ujeedkaygu waxa weeye ilaahay hakoonka abuurtay ee nimceeyay inaan ka farxiyo Soomaalina maanta way baabada halkan kala marayna waa ogtiin hudheelada marka la isku soo galo waa taqaanaan markiiba qabyaaladii bolosi baa la isku bilaabaya halkan ma kaymi kan baatay way kala dhimatay Soomaali laakiin uu yiri dad fara ku tiriso saydaas oo kale aaminsan Soomaalinimadu inay number 1 tahay walaalnimadu number 1 tahay inaad aaminto adigoo u dhashay koonfurta Soomaaliya inaad Hargeysa iman karto guriga ka dhisan karto sharaf ugu noolaan karto cid alla cid ku diidaysa ma jirto war adigu bolosi faraha la gelin adigoo ku dhashay Hargeysa inaad xamar tagi karto oo aad tagi karto Kismaayo oo aad tagi karto Makacadey minana oo Cismaan oo cidi ku diidayna ayaan ugu ogahay laakiin inta moobilbaalahan aaminto media inaad waxa doonto ku soo hadasho macna sameeymis Cabdimaalig waxa leeyahay Muusocdoon jazakallahu alf khayr jazaa labada taladayda maanta qaado waa miskiin yar
oo la yidhaahdo samafale macalin jaamac walaalkaaya aqoon aad u leedahay maaha markii koowaad iyo mar labaad maynaan soo wada hadal waan ku jeclahay qoyska reer Coldoon baan ka tirsanahay waxba dadka laabta ku garaacaya kula waa saxsantahay halkan mar waa saxsantahay kuwan ku dhil waa saxsantahay kuwan gub wallahi kuma aha nasteex ee way ku gubayaan wallahi nasteex kuma aha jarbay kaaga boodayaan walaal ha aaminin walaal kamarada yareeda aamintay iyo miidiyahanaada aamintay iyo kamaradan iyo suxufinimadan walaal hamoodin meel fog inay ku geynayso war suxufinimo waxa horumar ka gaaray raga aan ku soo tiriyay wasaabka lacaga waaweyn baa uga soo dhacay maalin bareer bay u saaran hawiyay maanta caayaan hawiyaydu maalinta dambana daarood bay kala qaadayaan maalinta dambana isaaqay ku gubayaan maalinta dambe ciise yeeriyanayaan maalinta dambe waxay yeeriyanayaan raxan weyn maalinta dambe digri way wadaanuun maalinba qabiil baa lagu qadeeyaa halkan buu joogaa Yurub halka iminkaan fadhiyo kale soo fadhiisanaya ma booliska wadankan baa soo doonaya albaabka ku soo garaacaya maya cidu caayo iyo cidu lacagta ku helaya waa Soomaali ilaahay na de iyo saloo kala baxayna iyagay u taala de anigu waxaan qabaa nimanka xorriyada haysta ee saxafiyiintii waa kuwan aan ku sheegay de adiga ma aha maalin dambana hooyadaha ka ohin maalin dambana dadka Soomaalida Afriida ka dhamayn maalin dambana hana qasin ilaahay hadaa taqaano Cabdi Maalig oo labo tiniteen mid soo gal inaad siyaasadda gasho oo aad nin siyaasi noqoto waa la bareeraa raggu wuu bareeraa ceeb maahe oo bartaa u baxdo iyo inaad dadkii ku baahnaa ee afkooda lagugu soo daayay iminka siyaasi ahaan laguma soo dayin dadka lagugu soo daayay intaas ee lahaa ilaahay dadkii dad buu caawiyaa ilaahay dadkii u caawi inta badan lagugu doodayay waa dadkii masaakiintii wax tartay sharaftooda aad ku soo baxday maanta isla kuwii u hiili wala barakallahu fiik Cabdi Maalig oo kuwii u hiili war kuwii adraadood godkii u soo baxday u hiili ee lagu saamaxay u hiili oo halkii ka wad oo dadkii masaakiintii caawi oo waynu u wada shaqeynaa dadka masaakiinta dadka caawi ayaan ku leenahay anigoo waliba mataliya qurba joogta samafalayaasha qurba joogta afayeenkoodana waa odagoodina waa anoo matalaya waxaan ku leeyahay walaal gacaliye free dambe way naga dhamaatay ilaahay hadaa taqaano dadka aad madaxooda ku soo baxday waa dadkii masaakiinta caawin jirtay caawi hadaad weydo miidiya inta noo soo fariisto waxa tirada war inuu siyaasi aan hayo halkaasaan ka ilaacaya waa ku duceeyna faatixadan quraacina in badan baan ku jiray si share gareeya like iyo share iyo comment ba saara cidii soo cayda waxaan leeyahay جزاكم الله ألف خير الجزاء عمل العفو الله عما سلف وسالف بعد قتهاي أنا قلت لك كم مشغولو لا يفكر أنت بدل مصو قالوا عدي أفلاق ديسي وحلي إذن كإلهي إذن أسترو عدي نلقى ترهيجا إن نكا ولا الكيان حتى عليها هاي سنة أنت إن لك أدوبة أدخ بارك الله فيك قلت يا جبك بدي وحنك جبحيا عبد مالك ومرتبه هو يداها كوهن Cabdi Maalig oo mar dambe maamadaasi ay ku daba lugaynin Cabdi Maalig oo maanta reerkaaga iyo caruurtaada yareeraa inankaaga xataa la soo galiyay Facebook oo la abahay baan u baahnay waan ka ooyo ilaahay googi war mar dambe arrimaha siyaasadda wax ku saabsan faraha kala bax wallahi gamaaha oo billahi gamaaha inaan halkaas qaarigu soo qorqorayaan ha adeerka baad ka hadlaysaa arrimihiisa adeerka musabix bay u jeedaan war anagu de family ahaan waan isku nahay laakiin adeer iyo wax la yiraahdo sheekadaasi anigu kama hadlayo anigu samafal ahaan baan ka hadlaya de madaxweyne musabix abdi noo xaniga igu sameeyay ma jiro madaxweyne farmaajo waxba igu sameeyay madaxweyne deni baan waxba igu madaxweynahan hadal hayo oo dhibariga igu sameeyay aan jirinba Soomaaliya oo dhan waan jeclay anigu Soomaaliya oo dhan baan jeclayda marka walaalayaal barakallahu fiikum dad badan baa jira oo jar uga talaabsanaya Cabdi Maalig oo doonayay inuu aakhiro u dhaco waxa leeyahay aynu la talino walaalkeeda wax wanaagsan kula talino waxa Cabdi Maalig nim yarba waxa soo qoraya Mawlid Cabdul Qaadirkii wali ayaa soo qorayo isagu cid buu doonayay inuu afkayga aniga caaysi xulay dadkii dulmiga ka xulay la hadal buu kulay aniga de aduu dad ku muuqda walaala aniga dad kala hadlaya de anigu la jecel Cabdi Maalig muu socod doon bayga haysabaan kuli maalin dambe caruurtiisa yareen aan waayin
oo maalin dambe inaanu waayin hooyadii aanay daba lugeyn oo maalin dambe inuu karaamadiisa iyo sharaafadiisa waayin baan anigu daniga haysaade xidhniin ba kama hadlaya anigu waxa iyo wax dhacay forget about yesterday baa lagu leeyahay wixii shalay dhacay iska ilow maanta ka hadlaya Cabdimaalik shalay si fiican buu hadlay wuxuu yiri wixii hore waa la soo dhaafay imakaan bilaabayna nolol cusub waan ku farxay marka waxa weeye anigu ma yihiin looga talaabsado oo la yiraahdo hebel iyo hebel la hadale anu shaqadeeda ma waxaas mawlidow ay dawqine waxa weeye runtu waxay tahay Allahumma salli ala Muhammad inan kaas Allah gargaaro Allah garab galo waanu ku jecelay Cabdimaaligow ma iga aha xumaan oo Ilaahay igu ogiyo waxa iga tahay la jecel waxa iga tahay inaad qeyrka ka sareyso waxa iga tahay inaad halkii ka wado waxa iga tahay magaca samafalayaasha inaad cirka geyso oo aad noo hiiriso oo aynu wax weyn noqono oo ummadaheena iyo dadkeena aynu gargaarno walaal barakallahu fiik kuntiye gabagabadii waxaan leeyahay Cabdimaalik Muuse Coldoon Ilaahay garabkiisa ha jiro ilaahayna sanadka maanta iyo bisha imika uu soo baxay khayrka ha waafajiyo ilaahayna waxaan ka rajeynayaa Cabdimaalik wixii soo maray ee faraha badnaa ee muddada dhan ila xidhniin ka soo horeeyay jirakii madaxweynaha ka soo horeeyay madaxweyne Siraayo ayaa ka soo horeeyay isagana de xidhniin ku jiri maayo waxaan ku hadlaynaa waxa weeye inanku ma xidhniin buu ku jiri miyaa la xidhuun mar walba taasaan ka hadlaynaa anagu la jeclaa naga haysa haddii mar walba ila Cabdimaalik baa xidhanay de wata taanu khaatiyaan ka joogsan ala kulli xaal waxaan leeyahay walaalkay Cabdimaalik taladaasi waa talo odaynimo waan hadlay anigu intaasaan ku soo gabagabeynay Cabdimaaligow Allah ha ku nuuro adaawadi xumaanayga maaha haddii aad hadalkayga dhibsatana cafi walaal dadka kale ee walaalahay dhageysanay waxaan leeyahay war qofka haddaad walaalka jeceshahay hadduu qofku qabri ka soo baxo waana loo duceeyaa waana lala taliyaa oo taladu ceeb maaha talada waliba sidii ugu wanaagsan anagu samafalahaan urur samafalahaan baan waliba leenahay noo soo dhawow walaal ka daayo walaal samafalkii ku noqo waayo ta lagu soo daayay wax kale ma yahayn waxay hayd samafalnimadii baa lagu soo daayay inuu ninkaas ummadu gargaari jiro ummadu u gargaari jirnay u baahantay taas ugu weyneed wax lagu soo daayay Cabdimaalik saxafinimo lagu soo deyn marka waxa weeye Cabdimaalik halkaas kaga baxaya guntiga gabagabadii waxaan leeyahay waxaan kaloo halkan uga faa'iideysanayaa anigoo samafale macallin jaamac Facebook-gayga ayaan soo dhigay haddii aad doonayso inaad wax ka barato haddaad degan tahay Yurub ama Mareykan ama Carabaha oo aad doonayso inaad liisanka wadamadan barato iyo sharciyadooda iyaga oo bilaasha oo aanan wax lacag ka doonin oo samafalnimo ah oo Ilaahay dartiya ayaad dadka ku bara halkan Facebook-gaygan gal hoos iyo raac linku halkaas u yaala waxa la yiraahdaa programka People and Power 1 iyo People and Power 2 iyo People and Power 3 halkaas soo gal haddii kale ila soo xiriid ana kugu soo daraya adigoo argeysa dadkii joogay ardaydii joogay qaar jaamacadaha ayaa barta oo qaar jooga xamar baa barta oo qaar jooga Boosaaso barta oo qaar Kenya jooga barta oo all over the world adduunka oo dhan baa laga barta ardaydu ugu xidhan tahay ilaa hadda 800 arday baan gacanta ku hayaa waqtigan chance kale ayaan soo galaa haddaba haddii uu doonayso sharciyada nabadgelyada wadooyinka Yurub inaad free ku barato walaal Soomaaliya oo dhan baa ku jirta waxa kaliya ka mamnuuca markaad qolkaas soo gasho haddaad tahay nin aaminsan gobollo iyo aaminsan qabyaalad iyo aaminsan reero qolka kuma soo biiri kartid 800 arday ka waran sharafta Soomaalidu leedahay oo Soomaaliya oo dhan ka socda ayaan halka qolka ugu baraa wax oo aanu hataa wax ku saabsan waxbarashada mooyee aan wax kale la soo gelin karin Soomaalinimo wata sharafna wata jazakumullahu alf khairin jazaa ninka doonayna ku soo biiro People and Power 1 baa iyo 2 iyo 3 waa saddex qol WhatsApp ku qaada 257 uu buuxsamay kii koobaad kii labaad baa hadda buuxsamay kii saddexaad baa hadda isna buuxsamay marka waad soo gali kartaan halkaas aad ka soo codsan kartaan haddaad u baahantahay waxa kale oo cilaaminayna halkan ka cilaaminaya oo guntiga gabagabadii arinta Cabdimaalik dabadii aan doonayna halkan ka sheego waxa iyagana aanu doonayna anagoo samafalayaalaha inaanu caawino dadkii wadankii deganaa dhalinyaradeenii oo bilaa camal ah anaga oo hab miidiyaha casriya ku caawin doona
annaga oo insha allahu tacaala soomaaliya oo dhan ilaahay idankii intaanu ka gaadhno aanu doonayno inaanu ka caawino ardaygiiba aanu u samayno 5 mihnadood makaanig laxaamad muxuu ahaa electrician cagafyada sida loo waxyaalaha caynkaas ku saabsan 5 xirfadood biralaab muddo 4 bilooda ayaanu doonaynaa inaanu soo saarno 200 oo inan يعني أفرتي بلاد لبا بقولوا إنن هدانو سند سو صارنا لح بقولوا إنن مثلا مقدشو كليا أما بوساسو كليا أنك سو صارنا إنتاي لاج أما ان محوا هرجيسا أما ميل أو صومالي هذا إنتانو جاري كرنو حتى مقالو howlaha ana waxaan la wadayaa dadka deegaanka u dhashay ba sha Allah ayaana la wada gacanta nagu lahaya waxaanu doonaynaa maadaama dhalinyaradeenna amal la'aan ay u tahriibayaan maadaama dhalinyaradeenna amal la'aan u baabeen maadaama dhalinyaradeenna ay badaha ku daadayaan annagu maadaama aanu wadamada nimi waxna ka faa'iidnay wixii aanu wadanka ka baranay sideenu u gaarsiin karnaa wadankayagii makaanigii baanu baraynaa waxyaalo badan baanu baraynaa dad badan baa ila shaqaynaya hawsha waxaanu bilownay bishii Ramadaan kowdeedii meel fiican bay noo maraysaa haddaba haddii aad Soomaaliya gobolka doonto ka degan tahay haddii aad moodayso qorshahan inuu yahay qorshe lacag kaaga baxayso maaha walaal waa qorshe ay reer Yurub ku tallaabsadeen naqshadan reer Yurub baa iskale way ku meel gaareen waanay dadkooday kor ugu soo qaadeen isla tii uun baanu anaguna soo qaadanay tii baanu wadankii geynaynaa waxa weeye marka koobaad dhul anti guud ayaanu matalan هلينا كسو قاد مثلا بلد وين أو كلا ما يركب بلد وين أيانو دول كقاعدنا هنتي جودة أو بلارن أو كتير جرون كي كبد حتى أيضا يردو كعياريسي أفرتها بلاد دول كامر كوما يركون السيو أيانو كدب تجارته يدت كرير بلد وينه كوبية تمن قبيل بعدي أيام دبدنا أنا قول سما فليالا نحمرينا أنا قلنا وحنو كدرينا نكينينا وحلاقة سياسي ديد مخسن ومقسين كيبا فريسانية 25 ونقشد عيد ولبا كفايدة سنكرتو سيديد دا مقسين markayna madaasi soo fariistaan waxaanu keenaynaa qalabkan kombiyuutarada sidan oo kale inaad arki kartaan ma garan karo waaba kuwan agteeda yaallay marka aan san iraahdo uu yar qarsoon yahay ma arki kartaan sidan imanka oo kale ikaadi hadaan kamaradii furo aan iraahdo sidan waad aragtaan imanka oo kale waad arkaysaan waa idinka arkaya halkaas oo kale anigu bartan jooga ayaan inanka beled weyne jooga ama inanka Boosaaso jooga wax ka barayaan oo halkayga jooga halkan isna waxa ii yaala oo kale oo garabkayga yaala Allahumma salli ala Muhammad kuwan kale ii yaala iyagana halkan waad arkaysaan laptop kale halkan ii yaala isna diyaara ma sha Allah halkan waa idin arkayo de kan kala furan marka waxa weeyaan waad arkaysaan de alaabtu way sukaya saaran tahay ilaa iyo waad arkaysaan hawlihii lagu socodsiinayay oo dhan halkan bay noo yaalaan waxaanu kala haysanaa kamaradii oo aanu iyagana dadka kamarad weyn oo xagga miidiyaha marka barakallahu fiikum Allah idin nuuro hawshaas aanu qabanayno wasiirada wadankii ka shaqeeya iyo madaxda wadankii ka shaqeysa way garan weyday laakiin waan dhiiri gelinaynaa iyaga laftooda inay arrinkaas sameeyaan Cabdimaalik Musacad doon ajalkaygaasi markuu gaaro isaga laftiisu inuu hawsha nagala hawlgalo ayaan doonaynaa matalan oo kala burcada uu degan yahay lafteeda maayarka khayr Allah siiyo dhulka weyn baanu ka doonaynaa inuu na siiyo 8 maqsin 25 arday waa 200 oo inanku makaaniga mashiinka intuu ordo baanada idib mooranayo iskama fuulayo may horta marka hore projectorkan gidaarka lagu tuuraan soo qaadayna ardayda horta marka hore inaanu isagoon jiinkiiba furin baan horta sidan dadkan Yurub too kale ayaanu jiinkii kala baraynaa sidoo yahay deynabada salafka bayteriga waxa soo dhanbaan si kala baraynaa marka inankii oo bisil oo garanaya motorka sida loo kala furo ayuun baanu ku kicinaynaa hubiyaha dow isaga isku xiraya isaga furfuraya birlaabka sidoo kale data system baan ku baraynaa sidan oo kale aan u baraynaa laxaamada sidoo kale dabadeedna inankii 4 bilood oo kaliya markuu 5 mihnadood soo barto de 200 oo inana noo soo baxaan in 4 bilood ee kale 200 soo baxaan bal waxa ka warantaa sanad kaliya oo garoowe aan 1200 oo inan wax barnay waa ay awoodda diidaysa damiirku yuu kaalumin wariya anigu
madaxweyne muuse bixi cabdi isku family baan nahay nin halkaa ka soo jeedaan haddana anigu haddaan maanta Soomaaliya gudaheeda anigoo caawimada ka bixinaya madaxda Soomaaliland oran mayso soo qabta jaamac farta lagu soo xidho way ogyiin way ku taageerayaan baanku inaan Soomaali caawiyo iyo inaan Soomaali hay qof waliba uu ogyahay everybody knows sidoo kale ayaa marka dadnimadu yey ka guurin walaal dadnimadu yey ka guurin barakallahu fiik waa inay dadnimadaadu qawi ahaataa ay kugu jirtaa waxa weeye walaalayaal waxaan doonayaa dhammaan Soomaaliya dhalinyaradeena inaanu ka saarno camal la'aanta arrinkaas waa arrin aanu ku dhaqaaqnay waa arrin noo socda Allah idin barakeeyo nagala qayb gala na soo taageera madax iyo shacabba arrinkaas waa arrin aad u qiimo badan waa arrin aanu doonayno inaanu insha Allah taala waananu hirgelinay waananu wadnaa gobollo badan oo hawshaas way nooga socotaa meelo badan imkaan gacanta kula jirnaa nacaawiya nala shaqeeya jazaakumullahu alf khayran jazaa haddaad doonayso barnaamijyada caynkaas inaad ku soo biirto laynkaha waxaan soo dhigayaa facebookayga hoos u raac halkaa kala soo deg soo gal whatsappka aan wax ka dhigno halkaasaad nagala socon doontaa barnaamijyadana dhawaan baan bilaabayna waxaan kaloo kaga faa'iideysanayaa barnaamijyadan aan iminkaan dhigno waxaanu ku dhigi doonaa luqadda ingiriiska waxaanu ku dhignaa swedishkii oo dadka jira aan luqadda ku adagtahay igana caawinayno waxaanu wadnaa qayb carabiga waxaan isku daynaa macallin kaliya jarmalka baan haynaa dhalinyaro badan baa jarmalka ku yar adiban laakiin hal macallin baan haynaa macallinkii kale naga maqan waanu wax badan baan wadaynaa insha Allah jazaakumullahu alf khayran jazaa waad mahadsantiin dhammaantiinba walaalayaal ardaydeedu aad bay ugu ducaysaa maalin walba haweenku ugu badnaadaan ducadaana waxaan ku helay waa qaybta samafalka I'm not policy man war siyaasi ma yihi anigu ma yihi nin miskiina baan ahay oo bas oo miskiina oo waxaan ku yiri makaanignimada iyo waxa ay intuu bartay wuxuu bartayna umada ugu faa'iideynayaan Allah idin barakeeyo ajarkana aad buu dheeraaday waa idin salaamaya waxaan leeyahay jazaakumullahu alf khayran jazaa waad mahadsantiin walaal culdoonna waxaan leeyahay jiirkaygii baa tahay waan ku jecelahay ilaahay dhib dambe akaa fogeeyo kuma nabci waan ku jecelahay laakiin maanta laga bilaabo talaa ku eg insha Allah go'aan qaado big decision oo noloshaada ku saabsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh aad iyo aad baan idin salaam in alla intii meesha soo gashay oo dhan reer Nishoogan way ku sugayaan buuri Maxamed akay waan ku salaamay Maxamed akay inta ka sareysa inta khayrka qabto ma mahad celin dadka inta jecel inta wanaaga jecel inta Soomaalinimada jecel inta horumarka jecel dhammaantiinba jazaakumullahu alf khayran jazaa sidaan caruurtayda ula jecelay wanaag ayaan Soomaali oo dhan wanaag ula jecelay sidaan anigu wanaag iskula jecelahay ayaan Soomaali oo dhanna sidaan anigu wanaag iskula jecelay ayaan Soomaali oo dhan wanaag ula jecelay la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi halkaana waxaan ku dhaafiyaa walaalkii Culdoon iyo sheekadiisa iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo jecelahay jazaakumullahu alf khayran jazaa والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته